kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada qodobada ka yaran mu'asasada Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo qodobada ceebaan taabanaysa u jeediyay ciidamada ku sinjiida dagaalka Hiiraan ayaa inaynan shabaab isu keenin dirin waxaan idinkaga digayaa in shayaadiin oo idin qabiila ama in adeerkiina oo maskaxda laga soo qalday oo qaa'ina oo tuuga idin soo adeegsan oo dhaxdiin inta la keenay fidna idin ku dhaxabuuray oonan dhihin shabaab hadaan dawladda wayba meelaha iska taagtaagantay shabaabka aan iska raacno aan iska leeshiino inaan liidin dhih arrinkaas waa khatar aad u maaragtay khatar u yahay niman tagay wasaaradda Soomaaliya oo gaaray magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan ee qodobada ceebaan taabanaysa ku jeediyay halka waxay gaareen marxalad ay xoolaha keligitaan ay gaareen markuu qofku halkaa gaaro waana kuma istaago wacdi kuma istaago waxaan ahayn in la iska celiyo kuma istaago sidaa darteed waajib baad gudanaysaa madaxweyne xasan maxamed boqol maalin kadib safar ku tegay Puntland haddaba qab noocee loo soo dhaway warbixin aydan ka hayna xogii ugu dambeeyay dagaalada ka socda Itoobiya iyo TPLF warkii ugu dambeeyay isku doona qodobada barin ku faahfaahin hadii awoodda laga helo ayna ku badan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Abdulqaadir Maxamuud Nuur Jaamac oo booqasho ku jooga gobolka Hiiraan waxa uu qodobada ceebaan taabanaysa u jeediyay ciidamada ku sinjiida dagaalka isla markaana uu sheegay difaac galaan Abdulqaadir Maxamuud Nuur Jaamac wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya waxa uu ku baaqay dhammaan dawladda lagu qaadasho waxaan idinkaga digayaa inaynan shabaab isu keenin dirin waxaan idinkaga digayaa in shayaadiin oo idin qabiila ama in adeerkiina oo maskaxda laga soo qalday oo qaa'ina oo tuuga idin soo adeegsan oo dhaxdiin inta la keenay fidna idin ku dhaxabuuray oonan dhihin shabaab hadaan dawladda wayba meelaha iska taagtaagantay shabaabka aan iska raacno aan iska leeshiino inaan liidin dhih arrinkaas waa khatar aad u maaragtay khatar u yahay niman tagay oo baaba'ay oo waxay sidaan iyo diinta iyo message-kay sidaan la arkay inaanan dib deegaankan loogu soo celin waxa kaloo idinka rabaa deegaankan dib dambe inuusan shabaab u arkin dawladda idinla joogta ama aysan idinla joogin waa inaad ka ilaashataan deegaankiina shabaab waa ilmo yaryar oo meelaha warwareeg inta sida la sheegay inta ku fadhidaan ma dhama maxay idinkugu gubaysanayaan waxba soo ma taan waxaa la rabaa inaan iska ilaalino oonan dib dambe deegaanadeeni shabaab uusan u imaanin si ilmaheen iskool u helaan maaragtay horumarka dawladnimada lagu gaarayo aad u ballaaray aad iyo aad u weyn yahay laakiin meel shabaab joogo dawladdu inay xurayso oo la dirarto oo dhaafiso maahane horumarkan ma laga samayn karaa hay'ad wax ma keeni kartaa iskool ma laga dhisi karaa dawladdii hay'adaheeda kala duwan oo civilka ama shaqeyn karaan haddii meesha uu shabaab joogo marka amniga asal maaragta markii uu maaragta aayadii waxay ahayd soobaan rabbi ijcalnii haadaa